ilaa halkaas ayaan hadda soo gaarnay. waxaa weeye haddii jeer waxaan ku laabanaynaa midkeena hore. waxaan sameynaya waa qaybtaas sare waaye. haddana waxaa u gudbaya qaybtan hoose, incomeka qaybta ka hooseysa iyo expense qaybta ka hooseysa inaan u gudbo. marka hoos ayaan u soconayaa. so first thing aan rabo waxaa waaye in kuwan aan saddexdaa sidaas inaan inta sameeyo aan dhaho merge. kana sidoo kale saddexdaas inta saa oo sameeyo aan dhaho merge. so sidaas ayay ahaanayaan ayagu marka. okay great. waxaan rabaa marka inaan table ka hooseeya aan sameeyo. tableka wuxuu ku bilaabanaya serial number, kadib waxaa ku xigay date, kadib waxaa halkan ku qorayaa particulars oo ah macnaha faalada shayga waxa uu yahay. intana waxaan ku qorayaa amount. okay hal mar sidaa waa highlight gareynayaa dhammaantooda. control aan taabanayaa, waan jiidanayaa, intaan dhiganaa sidoo kale isla meesha. labada dhinac isku midan ayay noqdaan. waxaan sameynayaa dateka ayaan rabaa inaan waxoogaa ku daro oo meeshan aan ka weynaysiiyo. columnka datekaan sidaa u dooranaya, control aan qabanayaa, kan kaleo datekana saasa u dooranaya. wax yar ayaan sidaa ugu darayaa saas inay wada isla intaas wada noqdaan. kadib waxaan tegayaa kanan asagana inaan weyneyn rabo particulaska, saasaan u dooranaya. kadib particulaska kaleete dhinaca kale ayadana saasaan u dooranaya. iyagana waxoogaa waan weyneynayaa, bal waxoogaa saas oo kale intaasaan ka dhigayaa. weli waxbaan ku darayaa so that inay mataqaana waxaa qaabkaasaan ka dhigayaa. kadib haddana amountiga iyo labada amount aan isla taabanayaa hal mara. halkaasaan taabanayaa, then kadib ayagana waxoogaa yaraan ku darayaa. okay alright, waxoogaa yaraan ku darayaa. intaan ka gudbina waxaa u bedelayaa formatka oo dollarka ah. aan u bedelaya hal mar calaamada dollarkaas u taabanaya. intaa kadib waxaa sameynayaa halahanaan dooranayaa. halahaas oo kale ilaa intaa doonta ka dhigo adiga, laba oo kale ka dhigo, haddaad saddex ka dhigo, intaa doonta ka dhigo. halahaasaan dooranayaa. laakiin intaas intaanan gaarin waxaan rabaa kuwan inaan mataqaanaa format gareeyo, bold ka dhigo ayaan rabaa. waxoogaana saa adigu maaragt intaasoo kale aan ka dhigo. kadib waxaan sameynayaa intan ayaan isla wada dooranayaa ilaa 18 aan keenaya. control T aan leeyahay. maxaan ka rabaa table aan bedelayaa. waxaan taabanayaa halkaas oo my table has headers ay ku qoran tahay. kadib okay aan leeyahay. tanna sidoo kale iyadana qaabkaas oo kale ayaan leeyahay control T. kadib waxaan leeyahay my table has headers, kadibna okay aan leeyahay. waa ka marka tabeladii aan u bedelay waa diyaar. laakiin tabelada waxaad fiiriso wuxuu leeyahay kala color waaye. qaybtan color u gelinaa, tan cadiin oo ka dhiga, tan color kale, tan cadiin. for example waan ka bedelaya. marka qaabka uga bedelaya waxaa waaye tableka gudihiisa sida ugu dhufanaya. waxaan tegaya calaamada tableka, kadib meeshan ay ku qoran tahay banded rows ayaan ka qaadayaa, finaartan ka qaadayaa. kana sidoo kale waan dhex keenaya, asagana waan ka qaadayaa. kadib way ka baxayaan fiir, marka wixii way ka baxayaan, nadiif u noqonaya. alright, intaas kadib waxaan rabaa qaybtan inaan colorkan ka bedelo oo aan siiyo colorkan fadeka ahaa oo aan raaciyo. waxaan raacinayaa qaybta kale ee documentiga. saasaan leeyahay, saan uu sameynayaa. kadib nidaamka waxaan bedelayaa tableka. waxaan sameynayaa tablekan halkan intaan gudihiisa sidaa ugu dhiftaa. waxaan tegayaa table design, waxaan taabanayaa halkaa, waxaan qaadanayaa kan si uu mataqaanaa qoraalka hadhow qurux uu ugu soo baxo. fiiri madow uu isbedelayaa. nidaamka designka wuxuu qaadanayaa tableka, haddana tan oo kale qaadanaya. qaabkaas way noqonayaa marka. great. waxaa soo haray inaan ka saaro filteradan. fiiriya waxaan filteradan inaan ka saaro. filterada waxaa uga saari karaa control shift L, ama haddaan rabo si caadi direct uga saaraya. soo halkan qalin keensanaya, waxaan leeyahay saasaan waa highlight gareynayaa, then control shift L waan ka bixiyey. kana asagana sidoo kale control shift L aan ka saaraya. okay, sidoo kale labadan ayaan ayaguna isla highlight gareynaya hal mar. xogaa aan size-koodii aan ku darayaa xogaa yar, kadib bold aan ka dhigayaa. kadib waxaan siinayaa the same colorkii noocan ahaa baan siinayaa si uu isku waafaqo systemko idil, nidaamka dhan uu isku waafaqo. kuwan waxaad moodaa inay xagga hoose yaalaan. waxaan rabaa dhexda inay tagaan, iyagana saasaan u highlight gareynayaa. taas dhexdaan ugu dhufanaya marka. xogaana ayaga hadda waan ku dari karaa, weyneyn karaa. kadib marka qaabkaas ay noqonayaan ayagana diyaar. great. marka waxay dhanba qaabkan isku bedeleen. haddii aad rabto kan inaad mataqaanaa calaamad khaas oo muxuu ahaa
kalar kale qaas asiiso adiga la waayo waa siin kartaa laakiin hadda anigu waxa ma siinay faraha ka qaaday qaabkaas ma deynay